shirkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaan uu kula qaatay xafiiskiisa aqalka madaxtooyada wakiilka hoggaanka safaarada dalka Mareykanka uu ku leeyahay wadanka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi una qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa muddadii uu socday waxa lagaga hadlay arrimo door oo ay ka mid yihiin doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliland ee la filayo inay dalkan ka qabsoomaan arrimaha nabadgelyada kaalinta Soomaaliland ay ka ciyaari karto xaaladaha siyaasadeed ee qaaradda Afrika sida dagaalada ka socda dalka Yemen gaar ahaan sidii Soomaaliland ay kaalin muuqata uga qaadan lahayd qaxoontiyada ka imanaya Yemen iyo sii wadida cilaaqaadka u dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Mareykanka dardargelinta mashaariicaha horumarineed ee uu dalka Mareykanku ka geysto Soomaaliland markii uu dhamaaday kulankaasi u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigaasi ka socday dalka Mareykanka ayaa waxa si wada jira warbaahinta uu la hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland iyo waliba wakiil ku-xigeenkaasi safaarada dalka Mareykanka uu ku leeyahay Nairobi mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland oo hadalka ku horeeyay ayaa sharaxay waxyaabaha lagaga hadlay waxa uu laga wada hadlay arinta electionka iyo sidii si qiimo leh loogu qaban lahaa la isuna fahmi lahaa waxa weeye sidoo kale security iyo sida ay nooga caawin lahaayeen nabadgelyada sida ay nooga caawin lahaayeen maadaama ay ka soo kordheen arrimahan Yemen iyo culayska inaga saaran sida ay nooga caawin lahaayeen ay uga wada shaqeyn lahayn caawinaha uga wada shaqeyn lahayn sidoo kale waxa weeye arrimaha wada shaqeynta xagga horumarka iyo developmentka sida looga wada shaqeyn lahayn nogala yani uga cooperate gareyn looga wada shaqeyn lahayn Masar Brian Phillips wakiilka hoggaanka u gaarka wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee safaarada dalka Mareykanka uu ku leeyahay wadanka Kenya ayaa rajo fiican ka muujiyay qabsoomida doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliland waxaanu yiri isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Likewise, we did talk about politics and the elections, and we strongly support Somaliland in its desire to hold timely, credible, free and fair elections. Somaliland has been a democracy for several decades now. waxaanu ka wada hadalnay arinta siyaasadda iyo doorashooyinka waxay u baahan tahay in taageero adag laga siiyo Somaliland arrimaha doorashooyinka Somaliland waxay khibrad u leedahay doorashooyinka gaar ahaan waxay caan ku tahay doorashooyinka xorta ee dimuqraadiga waayo hore ayay u gashay doorashooyin kala duwan waxaanay horumar ka gaadhay hanaanka hay'adaha dastuuriga oo qaar dimuqraadiya waxaanu doonaynaa in la sii wado lana horumariyo mustaqbalka maruu ka hadlaya arrimaha nabadgelyada Soomaaliland iyo mandaqada qaaradda Afrika Master Brian Phillips gaar ahaan dagaalada ka socda dalka Yemen iyo qaxoontiyada imanaya Somaliland iyo doorka ay Somaliland ka qaadan karto waxa uu ku sheegay in ay tahay muhiim of this whole region is very, very important to the American people. Likewise on security, particularly at this time where we have a very, very difficult fighting going on in Yemen and refugees already beginning to both return and come from Yemen. It's a very challenging time for Somaliland.